إلهي سبحانه وتعالى درف الأسفل من الجنة حقيقي. إلهي سبحانه وتعالى وكوي ملايكته انت قاعد عن سمد الله وصوت كذا الله كديما كوي نفتهذا قوينا. إلهي سبحانه وتعالى شعبك صومالي هذا كسو قبتين نبد معي واين meel ay ku noolaato ma ay waayin, dhib ma haysan, kadeed ma haysan, kurba ma haysanin. waxay uga tagtay dalkii ay ku kortay oo go'aan ay uga qaadatay 2011 inay ka tagto oo ay tiraahdo waddankan iima qalmo ilaa iyo waddankaygii hooyo inaan dadka ka gadaa jirto, shacabkayga inaan isku soo dhaweeyaa jirto. waxa aan u noolahay inaan shacabkayga, dalkayga iyo dadkayga u dhinto oo horta waxa Soomaali tahay aan dunida ka gado. fiidiyowgii ugu dambeeyay ay duubtay waxay tiri adduunkan waxba lagama qaadayo, xoolo kama rabo, lacag kama rabo, hanti kama rabo, ilaa iyo inaan Allah subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayo maahane. ilaahay diintiisaan bartay, macaanka ay dunidu leedahay iyo macaanka aakhiradu leedahay kala bartay. inaan nafteyda qaabo oo adkeeyo danta ay ku jirto, maxaa yeelay cadowga Soomaaliyeed ayaa oohinteyda ku farxaya maantayto. ma ahan inaan wig u noqonayno, ma ahan inaan u ooynayno, ma ahan in maxaa la dhahaa ay naftayadu daciif noqonayso oo cadowgayagu nagu maadsanayo ilaa iyo inaan aday ka sii qaadno, inaan ay karti ka sii qaadno mooyaane. Soomaaliyay waxay naga dhintay waa naga dhintay, inta nool ayna daba qabano. wiilka maanta wax dilaya waa Soomaali, kan la dilaya waa Soomaali, kan isqarxinaya waa Soomaali. halyayadana way dhinteen, dhalinyaradana way baaba'een, waxa garadkeena wuu baaba'ay. wiilana dabiir waxaa u silaanahay inaan u sii nacamlayno. inaan meeshii dadka lagu cunanayay oo dadka lagu qalanayay aan life ka soo galno, aan fiidiyoyaal ka soo duubno, aan qofkii dhintay sawirkiisa wareejino. adduunkan waa mataacal quruur, adduunkan waa mataacal quruur. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kun fi dunyaa kaannaka qariiban oo caabir sabiil. يا عمر كن في الدنيا كأنك قريب وعابر السبيل. تاسا إنه وذا سويس لكن وحاضرن سلح دمو. adduunkaan ku kala ordayno waa mataacal quruur. Soomaaliya inaan dalkeena u hiilino, dadkeena u hiilino, dhulkeena u istaagno, wax noo dhaamo ma laha.
ha iska dayna qabyaalad, ha iska dayna dabadhelif, ha iska dayna shisheeyaa u shaqaynayna, ha iska dayno shisheeyaa u shaqaynayno. maalin kastaba qofkeena halyeyga ah oo dhimanaya bayna badbaadsan karin ilaa iyo allah subxaana wa tacaala tiisa mooyaane. soomaali way dhammaatay. maanta nolol cod ku joogta waddankeena qof kasta uu baqayaa, qof kasta fiir buu qabaa, qof kasta baqdin buu qabaa. hodan ilaahay subxaana wa tacaala ilmaheeda yararkaa salac uma dambaysiiyo. ilmaheeda yararkaa ilaahay kama dhumiyo. ilmaheeda yaryarkaa ilaahay subxaana wa tacaala qofaan soo qabanayo. waxay tarayso malawaaro waa la wada socdaa. kula nafsin daa'iqatul mawt wa kula nafsin bimaa kasabat rahiin. waa la wada dhimanayaa, waa la wada socdaa. qofka tiisa gashana marnaba tiisa ma dhaafaayo. haddaan naf coshalayno waxaan coshan lahayn aynu ku cimilo qaadano, aynu ku waayo aragno, aynu isku fiirino, aynu maskaxdeena furno inuu taargetka cadowgeena uu yahay in saas loo galaayo oo la kadeedaayo oo la dilaayo oo la qarxinaayo oo la rafaadinaayo oo sidii xabadkii dhiig naloogala baxaayo, sidii tin canjeelo looga bixinaayo ayaa ku dhimanaynaa. marka malay maqlaa horta maqalkayga see waa xasuubi ma soo koobi karo. laakiin qof alaala qofkii tacsi diraayo waa soo qabanaya furaaga la rabaa. maanta dareenkayga ma ku cabiri karo waxba. dareenkii aan qabay maalinta soobe
qaraxiisu dhacay waxaan u malaynayaa 3 bilood ayaa xanuunkiisa igu sii dambeeyay ilaa haddana dhagahaygu ka qaylinayo kii cawilaa igu xogay kii saada cali midba mid uu ka daran yahay mid uu ka daran yahay midba mid uu ka daran yahay laakiin sida culimo aduunka wax ka xun ma laha wax ka xun ma laha marka wallaahi hadda waa igu diidan yahay maanka kaamaradaada ma soo qabsoomayso wuu iga diidan yahay inaan ku soo qabto igu soo celi wuu ku soo qabanayaa waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan maalin kasta qarax dhacaya maalin kasta shacabkeennii oo dhimanaya maalin kasta dadkeennii oo la baabi'inayo maalin kasta dhiig daadanayo ama dulqaadan karno dulqaadkuu naga dhammaaday waa in aan iska qabanno dadkana arag tiraayo waa inaan soo ribood garayno waa inaan iska qalino wacalaykum assalaam xaydar yara soo dhawow maanta dareenkayga waxa aan ku cabiro ma sheegi karo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawaca allaha caafiyo inta noolna allaha badbaadiyo maalintii qaraxii sooba dhacay iyo maanta isku dareen bay ii tahay isku dareen ayay ii tahay qaraxii soobe iyo qaraxa maanta shala dhacay isku mid bay ii yihiin qaraxa maalin kasta dhacaya iyo kan maalin kasta shacabkaygu lagu xasuuqayo isku mid bay ii yihiin ilaahay waxaan uga baryayaa subxaanahu wa tacaalaa qof kasta oo walaalkay ah oo dhintay jannaatul firdawsa oo qolaa inuu gaarsiiyo dembigiisa iyo dembiga waalidkiisa inuu geeyo مقرعة وقاسيو وإيجا ديدان yahay inaan maxaan dhahaa kaamarada wiilaa ku jiray wiilkiina waa soo qaban waayay haddana wuu diiday inaan soo qabto qofna waa cilad broadcastiga miyaa ma aqaane inta dhimatay allah u naxariisto geerida maantayto Hodan Nalayeh waxay taabatay adduun weynaha meel kasta aan ka noolnahay hadalkeedii waxaan xasuustaa dhexda xiro gabar baa tahay dhexda xiro is adkee ay dumarka Soomaaliyeed say ula talin jirtay say u wacyigelin jirtay say u ogaan jirtay waxaana u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshihiin qof kasta oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo inuu wacyigelin wada la arko cadawgiisu wuu badan yahay cadawna ma weynaayo
laakiinse halyey kastoo nalaga dilo halyeeyad kastoo nalaga dilo qof kasta oo loo dhaarto qof kasta oo loo hanjabo qof kasta oo naftiisa la gooyo ilaa ay qabri aan ka galno ma ahane uma joojinayno intii dhimatay waa dhimatay allah u naxariisto inta dambe oo ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inaa is ilaalisaan inayna meel isugu teginin hoteeladan hal hotel aad idinkoo saxaafad leh ciqaal leh odayaal leh dhalinyaro leh gabdho leh aad isugu tegaysaan isku aruursanaysaan joojiya naftu meeshay kuu jirta allahu aclam kulla nafsin daa'iqatil mowt waa la dhimanayaa maraan la dhimanayna ma jirto laakiinse cadowgaagu waxa uu jecel yahay inuu fiirsado meesha kuwaaga ugu tabarta badan kuwaaga ugu awoodda leh shacabka Soomaaliyeed kuwaaga ugu awoodda badan ay isugu tagaan shacabka Soomaaliyeed shisheeye ma laynaayo shacabka Soomaaliyeed dad inagu soo duulo gaala ahi ma laynayaan waxaa ina laynaya waa shacabkeenii Soomaaliyeed dhexdiisii oo hunguri ina ka raadsaday ama aayad si xun loogu soo tafsiiray oo aan naxwo iyo meel uu ka yimid ba aqoonin waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan isku wiga diidan yahay kaamarada inaan dadka u soo bahalkiyeeyo I don't know why u diidan yahayna ma garanayo wiga diidan reemidnima qaran oo beejka haddaa dhinaca kale uga jirtaan dadka soo qabta aniga wuu iga diidan yahay inaan dadka soo qabto marka wax kastoo nalagu sameeyo dhiigayagoo kastoo la cabo si kastoo naloo laayo uma joojinayno mana u joojinayno mana u joojin doono insha allah biidnillaahi baari adayg baan ka qaadaynaa waan iska celin doonaa gacmaheena iyo cududeennuna way adkaan doontaa qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed lidda ku ama mucaarad ku ah insha allah waan iska qabanaynaa haddii ilaahay qadaro daciif baan nahay bini'aadmi baynu nahay malaa'ig la macsuumay ma nihin oo macsuumiin ah xoogna ma sheeganayno waan daciifaynaa waynu kurboonaynaa waan murugoonaynaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii ay dhabtiisa ku dhimanayeen ilmuhu awooha u ahaa ilmaha ka imaatay ilmada markay ka imaatay salawaatullaahi wasalaamu calayhi asxaabta waxay ku yidhaahdeen nabi allow maxaad la ooynaysaa soo taa tiriyaan la ooynin ee hala samro rasuulku wuxuu yidhi waa raxmo ilinta tani ma ahan mid maxaa la dhahaa oo tii la nahiyey ama aha waa raxmo walaalayaal damiir baan leenahay dhiig baan leenahay wadnaynu leenahay murugada iyo oohinta iyo calool xanuunka ma ahan mid diintu diidan tahay waxaa la diidan yahay oohinta waa daqaylada ah oo dadka la istusaayo laakiin qofku wuu marigoon karaa haddaan runta sheego oo hadda aan run u hadlo qofna uma xarni dareenkaygu siduu xalay iyo shalay ahaa hadda saanaaba ku fiicanahay alxamdulilah waa hadli karaa laakiin xalay hadalaa sheegaysaaye xatay inaan meeshii aan fadhiyey ka kaca awood baan u yeelan waayo ilaahaa runta kugu jecel maxaa yeelay hodan aad iyo aad iyo aad iyo aad bay geerideedu ii taabatay cawil daahir salaad iyo ayadaba aad bay geerideedu ii taabatay aad bay waxay iiga qabatay meel gacantii dishay allaha gooyo gacantii dishay allaha cariiri geliyo gacantii dishay allaha naga qabto
gacanta dishay waa gacan aan u ogolayn horumar dalkeena iyo dadkeena iyo shacabkeena iyo bulshadeena iyo dhulkeenaba cadowga maanta ito muqdisho intaas oo qof ku qarxinaya cadowga maanta Kismaayo ku qarxinaya cadowga ayaan ku qarxinaya meel kasta oo Soomaali degto Baydhabo ku qarxinaya cadowga meel kasta oo Soomaali degto shacab Soomaaliyeed naftooda ku goynaya inakay inaka dhasheen waa cadow inaga ina ku dhex nool waa cadow inagu aynu dhalnay waa cadow inaga ina la dhashay waa cadow aan meel ina ka jirin cadow aan meel ina ka jirin waa cadow aan meel ina ka jirin waa cadowgaasna wuxuu u baahan yahay gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan inaan cadowgaas iska soo qabanno cadowgaas inaan iska soo qabanno ayaa loo baahan yahay cadowgaas haddaynan iska soo qabanin cadowgaas haddaynan iska soo qabanin